abaalmarinta caalamiga ah ee Oscar-ka ee filimada iyo barnaamij soo saareyaasha dunida ayaa lagu soo waramayaa in laga bilaabo 2029 si toos ah looga daawan doono kanaalada YouTube-ka, waxaana arrintan xaqiijiyay oo ku dhawaaqday Akaademiyadda Farshaxanka iyo Sayniska ee Motion Pictures, taa oo sheegtay in laga bilaabo 2029 ay dadweynaha guud ahaan caalamka ku nool si bilaash ah oo live ah ay uga daawan doonaan xafladda Oscar-ka kanaalada kala duwan ee YouTube-ka. Abaalmarintan Oscar-ka oo ah mid sanadle ah oo sanad walba la qabto laguna abaalmariyo aktarada iyo jilayaasha iyo soo saarayaasha filimada kuwooda ugu wanaagsan ee caalamka ayaa waxa ay u xirneed TV-ga ABC ka oo si toos ah u soo tabin jiray, waxa uuna kontraktiga kala dhaxeeya Oscar-ka TV-ga ABC uu dhici doonaa sanadka 2028 ka oo uu ku soo xiri doono xafladii 100aad oo Oscar ah oo xiriir ah, taa oo ka dhigan in 2028 uu soo xirmi doono 100 sano oo uu TV-gan kontrakti kula jiray qabashada iyo soo bandhigida xafladan Oscar-ka ah. Si kastaba ha ahaatee, YouTube-ka ayaa la xaqiijiyay in uu kontrakti ama heshiis rasmi ah uu la galay akaademiyadan bixisa Oscar-ka, waxa uuna dhaqan gali doonaa laga bilaabo 2029 isaga oo ku eg ilaa 2033, taa oo ka dhigaysa in kanaalada kala duwan ee YouTube-ka si live looga fiirsan doono lagana daawan doono xafladan sanadlaha ah ee Oscar-ka, waxaana lagu dhawaaqi doonaa marka heshiiskani bilowdo xidigaha ku guuleystay Oscar-ka 22 bisha Janaayo ee sanad walba, halka xafladda weyn ee abaalmarinta lagu guddoonsiin doono dadka ku guuleysta abaalmarintan ay dhici doonto 15 Maarso sanad walba. Filimada hadda ku jira liistiga musharaxiinta xafladda Oscar-ka soo socota ayaa waxaa ka mid ah Affection Verde oo ah filim lagu sameeyay dalka Norway, halka filimka kale ee Den Stige Søsteren oo reer Norway ah isaguna uu ku jiro filimaanta dhanka qurxinta iyo make-up-ka ugu sharaxan xafladda Oscar-ka ama abaalmarinta Oscar-ka ee sanadka soo socda ee 2026. Arrintan ayay dad badan soo dhaweeyeen maadaama xafladan ay u xirneed 100kii sano ee lasoo dhaafay, hal kanaal ka oo keligii soo tabinaya ayna ku qasbanayeen dadka dunida in ay halkaa meel ka daawadaan, ka oo ah kanaal lacag ah. Hayeeshee laga bilaabo 2029 waxa ay si bilaash ah dadweynaha kala duwan uga daawan doonaan kanaalada kala duwan ee YouTube-ka, halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo Cabdullaahi Shiine.